رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد وقد قال نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وهو قال: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إيانا وإياكم من الفتن والضلالات. أما بعد، أخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu kusoo guda jirnay inaanu iskaga tilmaano maalinta iyo ayaamaha tirsan ee bisha Ramadaan. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaahay subxaanahu watacaala waana gaadhsiiyey. ilaahay sharaf iyo cisi iyo wanaag kuwii ku dhammaysta allah naga yeelo. ilaahayna soomka anaga aqbalay insha allah biidni illaahi tacaala, iyo salaadeena iyo ducadeennaba. waxaynu markaa maanta qaadan doonnaa insha allah biidni illaahi tacaala mataa yaxramu lsiyaam, goormuu soomku qofka bilow aadmiga aanu ku bannaanayn ama aanu ku wanaagsanayn ama ilaahayba ka kor qaaday subxaanahu wa tacaala. culummadu waxay leedahay: idaa kaana asiyaamu yu-addii ila darari lilmariid, haddii ay tahay qof xanuunsanaya oo weliba qofkaa xanuunsanaya soomku uu sababayo xanuun iyo dhibaato uu sababayo, ama dawaduu qaadan jiray oo aanu qaadan inuu ka soomay dhibkeeda ha ku timaado, ama soomku laftigiisu dhib ha u sii siyaadiye. haddii ay tahay markaa dhib uu ku hayo oo weliba ama caafimaadkii loo markaa laga rajaynayay ramadaanta markay soo gelaysay qofkii inuu markaa uu haddana inuu taakhiiru shifaa'i u sababayo inuu qofkii markaa uu magaranaysa caafimaadkiisa uu sii istimraar usii noqdo ama u socdo oo uu markaa dhib keenayo. waxa weeyaan waxaa markaa aw yucraduhu lilfadr, waxaa markaa loo bandhigayaa inuu iska afuro insha allah biidni illaahi tacaala. ilaahay ruksadiisa uu qaato. alla subxaanahu wa tacaala siduu u jecel yahay addoonka markuu ilaahay shay ku amro amarkaas inuu qaato ka soo baxo oo sideed u fuliyo, ayaa haddana ilaahay wuxuu jecel yahay ruqsad markuu ku siiyey, ruqsadii uu ku siiyey inaad haddana amarkaa ruqsada kugu siiyey inaad qaadato oo aad fasaxaaga aad ka faa'iidaysataana waa shay ku wanaagsan. ilaahay baaba kitaabkiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala: fattaquu llaha ma stadactum. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada intaad kari kartaan, inaad awoodaan. marka qofka xanuunsanaya haddii uu soomkii kari waayo dhibaato iyo mashaqo uu kala kulmayo,
Allah subxaanahu wa tacaala ka cabsigiisa waa inuu haddana u qaataa ruqsadii ilaahay uu siiyey. ruqsada ilaahay uu siiyey buu ilaahay kaga cabsaday markaa subxaanahu wa tacaala. laana Allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ugu leeyahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra ilaa aakhir laaya. ilaah wuxuu ku leeyahay kiina idinka midka ah hadduu jiro mid idinka mid oo xanuunsanaya ama safar ku jira ha tirsado oo yaanu soomin, oo xanuunkiisa intuu ka caafimaadayana yaanu soomin, safarkiisa intuu ka soo laabanayo uu ku guda jiro ka nasanayo safarkana yaanu soomin. min ayaamin ukhar faciddatu min ayaamin ukhar, ha tirsadoon ayaamihii ka tegay maalmo kale ha u tiriyo 5 beri hadduu safar kaga jirana 5tii beri dib ha u soo qalleeyo. haddii 15 beri uu ku jiro 15 beri dib ha u soo qalleeyo. hadduu xanuunsanaa bishii dhanba xanuunsanaa bil kale maadaama laga rajaynayo insha Allah inuu caafimaado, bil kale ay markaa ha la yimaado ha soomay noqonaysa insha Allah biidna taala. nabi maxamed wuxuu alayhi salaatu wasalaam inna hada diina yusra walaw yashadda ahadakum illa qalabah. diintan iyadu waa fududa, cid alla cid isku adkaysana dhibkeeda iyo mashaqadeeda iyadoo unbaa sidii leeb qaansadu siday uga dhexbaxdo leebku uga dhexbaxo ayuunbuu se uga dhexbaxaa. diintii waa sugnaataa weeye. marka waxaa lagaa rabaa diintan mar haddii soom ay waajib kaaga dhigtay, waajibka soomka ay kaaga dhigtay waa goorma? kow, marka ugu horeysa waa inaad caafimaad qabto. 2 waa inaad muqiim aad tahay ood gurigaaga joogto. intaas marka lagaa helo waa in markaa aad noqotaa maxay? markaad ka timaado arrimihii islaamnimada iyo iimaanka, markaad intaa ka timaado 2 arrimood baa aasaas u ah. 2 arrimood oo aasaaska waa markaad aad markaa ku sugan tahay waajib buu kugu noqonayaa. waajib ayuu kugu noqonayaa. haddii aad ka tagtana dambiilaad noqonaysaa, haddaad inkirtana kaba sii daran marka. laakiin adigoon inkirsanayn oo qirsan oo ogol haddii aad safar tahay ama aad aad ku jirto haddii aad safar tahay ama aad ku jirto qof xanuunsanaya aad tahay, waxaad noqonaysaa marka in aad markaa aad aad ka faa'iidaysato fursaddu ilaahay ku siiyay ee fasaxa ah. وإلهي كله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن تكفى إذا استعملك خير بدن أو أعملك كل رقم تأرك عين كاس واقرت. وحكى له علماء إلى إذا تسبب الصيام بمشقة لا تحمل بمشقة حدي أصومك وسبب يوم مشقة وسبب يوم. tusaale ahaan qofkii iska caafimaadkiisu wanaagsanaanaya hadduu soomo, daawooyinkii wuxuu ka soomay ama qaybuubuu galay ama magaranaysaa nafaqa darro iyo dhibaatooyin fara badan baa kusoo asiibtay ama magaranaysaa xanuun fara badan oo mashaqaa ayuu dareemay qofkii. waxa weeyaan arrinkaasi waxay noqonaysaa mid aanu markaa qofkii aanu soomayn uu soomkaasi markaa inuu iska daayo ay u banaantay. xataa lagayar almariid ilaa uu ka qayirmayo ama uu magaranaysaa uu ka caafimaadayo xanuunkii hayay. kadalika yuxramu siyaamu yowmal, sidaasoo kale ayaa markaa loo xurmeeyey maalmihii soomka. waxa kaloo iyadana makruuha oo meesha ku jirin in la soomo yowmul shak, in la soomaana meesha kuma jirto. yowmul shaki waa yoomkee? shacbaan markay 29 tahay, waxa weeyaan habeenkaa 30aad yowmul shaki baa la yidhahdaa. inaad markaa haddii aad soomayso waxaad ku soomaysaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam soomuu liru'yati wa afduruu liru'yati. waxaad ku soontaan bishaan hilaalka ah aragtideeda ku sooma, waxaanad ku afurtaan afurkeeda ku sooma, aragtideeda ku afura.
haddii aad markaa aad leedahay ama aad muxuu ahaye ay idaa rasuulku wuxuu alayhi salaatu hadday kaa daboosho daruurtu, hadday daboosho cirka oy qariso, waa inaad markaasoon aad markaa aad dhammaystirtaa fa akmilu ciddada shacbaan waa inaad dhammaystirtaan oo 30 yoom markay tahay wixii ka dambeeya shakigii waa ka baxay. bil aragtideedana sugumaysid oo tirsiimadeedii waa kuu dhammaystiratay, aragtideediina waa kuu soo baxaysaa insha allah biidni illaahi tacaala. taas wata marka yoomu shaki laftigeeda in la soomo culummadu waxay leeyihiin ma banaa muxuu ahaaye waxa weeyaan waa makruuh weeyaan, ilaa iyo muxuu ahaaye la helo dad lagu kalsoon yahay iimaankooda, islaamnimadooda iyo iimaankooda iyo sidqigooga iyo xalaal miirashadooda lagu kalsoon yahay inay arkeen. qof ha noqoto muxuu ahaay iisoo qabo 2 qof ha noqoto, in ka badan ha noqoto, waa in ay markaa meeshii ay ka soo daahirta. haddii xataa qaryada kugu xigta ama tuulada kugu xigta ay markaa laga arko oo laga soo sheego oo ummadaasna ay noqoto in ay lagu yaqaanay aamin lagu yaqaanay, waad soomaysaa walow adiguba ayaanad arkin. taasina waata oo maxaa hal qof oo kaliya markaa suuragal ma tahay in lagu wada soomo intaasoo khalqi ay ku soomaan? nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, cabdullaahi bin cumar radiallahu canhu ilaa raalliha ka noqday, ayaa wuxuu arkay bishii Ramadaan iyagoo baarbaaraya bishii Ramadaan ayuu arkay cabdullaahi bin cumar. rasuulku u yimid wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, rasuulku ilaahay waan arkay bishii Ramadaan. rasuulku waa uu iclaamiyey in la soomo, isna waa soomay. marka waxay ku xiran tahay qofkan aaminkiisa iyo iimaankiisa iyo sidqiga siduu runta u sheegayo runta lagu yaqaano ayay ku xiran tahay insha allah biidnillahi tacaala. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu sugo islaamnimada iyo iimaanka, dabeecad iyo akhlaaqna inooga dhigo runta iyo beenka cararka. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allah kuwii qaata sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in ilaahay naga yeelo. waxaan leenahay allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqina cadaaba naar. rabbana dalamna anfusana walam takfir lana watarxamna lanakuuna min alkhaasiriin. walaalayaal wax kastana hagaajiyeyna ilaah iyo rasuulkiisa ay ka sugnaatay, wax kastoon aan haleeyeyna nafteyda iyo shaydaan bay ka sugnaatay. wixii aan haleeyey ilaahay dembigeeda iyo dunuubteeda allah iga cafiyo, khayr iyo wanaag iyo ajri xasanaadna allah igu bedelo. intaan hagaajiyeyna miisaanka xasanaadka allah inoo wada saaro insha allah biidnillahi tacaala. intaan akhriyaysa intaan dhegaysanaysaba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.